الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. شرف وين بينوتاي maanta inaanu nimaan magaalada Kismaayo oo uu dhawaan ka bilaaban doono shirkii madasha watashiga Soomaaliyeed aad iyo aad ayaan uga mahadnaqaynaa aniga wafdigaygu soo dhaweynta quruxda badan ee dadka reer Kismaayo ay maanta soo dhaweeyeen aad baan uga mahadnaqaynaa dawladooda madaxweynaha Axmed Maxamed Madoobe iyo shacabka reer Kismaayo reer Jubbaland qeyrada wadaninimo ay nagu qaabileen naguna soo dhaweeyeen sida uu madaxweynuhu sheegay waxaan rajaynayaa shirkan waa shirka laga hadlayay higsiga iyo meesha Soomaaliya ay aadayso 2016 mustaqbalka Soomaaliya ee sanadaha soo socda iyo waxa laga wada hadlayaa dabcan wuxuu ahaan doonaa shir muhiim ah go'aamadiisuna ay saameyn weyn ku yeelan doonaan mustaqbalka Soomaaliya sidaas daraadeed waxaan rajaynaynaa in shirkani uu noqdo mid ay ka soo baxaan waxa ka soo baxay ay noqdaan wax dan u ah ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan cid kastaaba ay ku qanacdo oo ay ku yeelato ra'yigooda iyo aragtidooda dadka ay matalayaan gobolada ay matalayaan ayaan rajaynaynaa marka cid walbaaba wax wanaag Soomaaliyeed cid kasta wanaag u tahay marka waxaan rajaynayaa inuu noqdo midkii Soomaaliya meesha hadda joogto ka qaadi lahayd meesha runta ay istaasho gelin dawladnimadeeda gelin inay noqdo ayaan rajaynayaa aad iyo aad u mahadsantihiin.